الجامعة وقفوا Somali Relief Trust إمام عاشا Foundation ay ka wadeen baadiyaha gobolka Gado walajeedkiisuna uu ahaa in bulshada baahida oonka qabta ay ku ambaxaan ayaa hadda maraya meel wanaagsan loona tagay biyaha ceelka Ismaaciil Sugo Buula waa injineerka gacanta ku haya dhismaha ceelka waxaana uu ka waramayaa halka uu hadda marayo howlaha dhismaha ceelka isagoona sheegay in ceelkan uu noqon doono mid biyo badan oo leh biyo macaan biyihiisuna ay gaareen maalmo yar kadibna ay soo gabagabeyn doonaan hawshiisa Bismillahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin Ilaahay waa mahad iskale ceelkan waad arkaysaan waa la qoday qarash badan baa ku baxay alxamdulillah rabbil caalamiin waa la qoday biyo macaan baa laga helay sidaas awgeed maadaama biyo macaan oo qabow laga helay oo carrada ka badan oo weli meeshan aan lagu arag oo ceel hortiya la qoday aan jirin waad arkaysaan oo haamihii iyo waxa lagu xareeyay baalihii kalbadka loo yaqaan ayaa lagu xareeyay midda labaad waxaan ka rabnaa dadweynaha sharafta leh sida ceelkii nidaamka iyo wanaagii loogu qoday inay macnaha ku hagaajiyaan hawshiisi iyo nadaafadiisi inay ku hagaajiyaan barabnaa ceelkan haddana wax yar oo sraacsi ayaa nooga dhiman sidoo kale qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanka ceelka laga qodayo oo ah Malmaley ayaa u mahad celiyay Maama Caasha Foundation oo qodista ceelka fulinaysa iyo Somali Relief Trust oo bixinaysa lacagta ku baxaysa hirgelinta ceelka waxaanu sheegeen in ceelka hadda uu gabagabay yahay biyihiisuna ay macaan yihiin laakiin ay codsanayaan in loo dhameystiro inta ka hartay hawsha ceelka Bismillahir Rahmaanir Rahiim ceelkan sidaad arkaysaan baa mataqaanaa waa la qoday kadibna waa la hamanayay jabiskina wax badan baa dhiman oo in la israaciyo raba haamankiina waa la geliyay dhismihii iyo baraagihiina way u dhiman yihiin sidaa darteed inta dhimanna in la dhammaystiraa loo baahan yahay oo raggii hawshan nala waday ay nala sii wadaan oo ay noo dhammaystiraan annaguna waa la shaqaynaynaa biyihiisuna way macaan yihiin waa loo dhacay oo waan aragnay kadibna biyo duugay kadib baan ka hawnay oo aan qodnin kale mataqaanaa hadda loo galahayaa alxamdulillah meel fiican buu marahayaa waa fiican yahay meel fiican buu maraa si fiican baana lagu dhisay kuwa ka badan waa filinaynaa in loo hagaajiyo si kastaba dadka ku nool baadiyaha gobolka Gado waxa ay u baahan yihiin inay helaan ceelal si looga baxo xaaladda biyo la'aaneed ee soo laalaabatay Somali Relief Trust iyo Maama Caasha Foundation waxay noqdeen kuwii ugu horeeyay ee ceel u qoda bulshada oonka qabtay ee ku nool baadiyaha gobolka Gado kadib muddo sanado badan oo ay ka jirtay dhulka baadiyaha ee gobolka Gado xaalad biyo yari in badan oo kamid ah xoolo dhaqatadan ay ka qoosteen nolosha baadiyaha ayaa Maama Caasha iyo Somali Relief Trust oo iskaashanaya ay ceel gacmeed waqaf oo lagu guuleystay ka qodeen dhulka baadiyaha ee gobolka Gado bulshada ku nool deegaanka Malmaley oo ah goobta laga qoday ceelka ayaa aad uga mahdiyay ceelka waqafka ee loo qoday waxaanu sheegeen in ceelka uu noqday mid kulansaday biyo macaan iyo biyo badni 24 saacadoodna ay cabaan dadka iyo dunyada waxaana ay inta ku dareen in ceelka ay hadda ku tirsan yihiin ku dhawaad 300 oo qoys Somali Relief Trust iyo Maama Caasha Foundation ayaa dadka reemiga ay aad ugu amaaneen sida ay uga garab istaageen baahida dhabta ay u qabeen helitaanka ceel biyood waxaana ay u duceeyeen cid walba oo arinta ceelka ka qayb qaadatay dhaansaday waa cabay waa ka raystay beerta la dariskaanahay hagar la'aan weeye ummadii keentay Allah u gargaar bismillaah ceelkan waxa noo sameeyay waan ku mahadinaynaa ceelkan biyo badan buu leeyahay ilaa 250 qoys baa ka cabta waa buuxinaa haddana ceelku waa kan laga cabaa oo biyo leeyahay 250 qoys xoolahoodii iyo dadkoodii bay ka cabaan marka waa ku mahadsantay haddana waa caadi bulshadii waa ka cabtaa waa ka dharagtay anigu waxaan ahay injineerka ceelka dhisay Ismaaciil Sugow waxaan in sheegayaa ceelkan sida wanaaga badan oo sharafta badan oo loo dhisay waad arkaysaan ilaahayga isku kaana keenay mahad iskale
waxaad ogaanaysaa reer Malmaleeyow aad iyo aad ayaad u nasiib badan tihiin waayo meeshan meel oo mane ayay ahayd maantana waad arkaysaan 24 saac ceelkii inuu go'i laayahay xoolihii alxamdulillah dadkii wixii dhan ay ku nasteen ilaahiga naga siiyaa mahad iskale waxaan u mahad celinaynaa allah mahad iskale walaalihii nooga soo qaadayna waa mahadsan yihiin walaashaydii noo soo dhiibtayna way mahadsan tahay waxaan aniga cadaynayaa meeshaan aan ku arkay baahi fara badan in ay qabto waayo ceelka waa ceel keligii weeye maalinkii 200 iyo xoogaha yaa iskugu imaada arig loo geeli wuxuu waa iskugu manayaan midda koowaad waxaad moodaa xoogaha intuu dhaankii ama cabahay ama xoolihii cabahaya xoogaha in la isku celinayo oo meesha xoogaha nafaas la'aan ay ka taagan tahay ayaa aad iyo aad u arkaysaa oo meesha baahida ceelasha aad u taagan tahay waxaan ka codsanaynaa Mama Asha Foundation in ay ceelashi badiso kuwa oo dayacan inay dayactirto